kooxdan reer Scottish ayaa ku guuleysatay koobkan sanadkii 1967 kadib markii ay finalka isugu yimaadeen kooxda Inter Milan ee reer Talyaani. ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Stadio Nazionale ee ku yaala Lisbon ayaa ku soo idlaatay 2-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Celtic kadib markii ay shabaqa soo taabteen labadii haliyay ee kooxdaasi Tommy Gamel iyo Stevie Chalmers. ciyaartan ayaa siisay haliyayadii kooxda Celtic magaca Lions of Lisbon ama libaaxyadii Lisbon. kooxdan hadda ka ciyaarta koobka heerka labaad ee Ingiriiska ayaa ku guuleysatay koobkan sanadkii 1982. kooxdan oo xilligaa ahayd horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay la ciyaartay ciyaartii finalka ahayd kooxda Bayern Munchen. ciyaartan oo ka dhacday garoonka Stadion de Koop ee ku yaala wadankaasi Holland. ciyaartan ayaa ku soo dhamaatay 1-0 oo ay guusha ku gaadhay kooxda Aston Villa. goolkaas oo u dhaliyay Peter White ayaa ilaa hadda ku jira xasuusta kooxda Aston Villa. Mortimer, Shaw, Williams prepared to adventure down the left. There's a good ball played in for Tony Morley. Oh, it must be! And it is! Peter Will! kooxdan ayaa ku guuleysatay koobkan sanadkii 1991 waxaana ciyaartii finalka ee ka dhacday magaalada Paris ee dalka Talyaaniga ku lagdameen kooxda Marseille ee dalka Faransiiska. ciyaartaas ayaa ku soo dhamaatay gool la'aan, taasoo ugu dambeyntii ay kooxda reer Serbia ku adkaatay gool kulaadyo. kooxdan ayaa ka koobnayd ciyaartoy badankoodu ka soo jeeday dalweynihii la isku odhan jiray Yugoslavia. Steaua Bucharest. kooxdan reer Romania ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee ka soo jeeda bariga Yurub ee ku guuleysatay koobka horyaalka kooxaha Yurub. kooxdan ayaa ciyaartii finalka ahayd ee xilli ciyaareedkii 1985-86 waxay si mucjiso lagu adkaatay kooxda reer Catalonia ee Barcelona. ciyaartan oo ahayd finalkii ugu horeeyay ee ka tirsan koobka kooxaha horyaalka Yurub ee ku soo idlaata barbardhac gool la'aan ah. intaas kadib waxa uu goolhayay kooxdan Steaua Bucharest oo si mucjiso loo difaacay dhammaan gool kulaadyadii kooxda Barcelona. taas oo goolhayahan oo magaciisa loo odhan jiray Helmut Kadam siisay naanaysta ah Hero of Sheffield ama halyeygii Sheffield oo lagu magac daray magaalada ciyaartu ka dhacaysay ee Sheffield ee dalka Spain. kooxdan ayaa ah ta ugu cajiibsan ee aanad ogeyn inay ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalka Yurub, sababtoo waxay koobka ku guuleysatay 2 jeer oo xiriir ah sanadihii 1979 iyo 1980. xilligaas oo ay ku jirtay casrigeedii dahabiga ahaa una tababarayay tababare Brian Clough. haddase way yar tahay intiina taqaana ama maqashay magaca Nottingham Forest. sidoo kale Nottingham Forest waxay noqotay kooxda kaliya ee ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalka Yurub in ka badan inta ay ku guuleysatay koobka horyaalka dalkeeda.